wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa maanta hortagay labada guddi joogto ee golayaasha wakiilada iyo guurtida ee Somaliland kulankaasi oo warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo gabagaboobay waxa si wada jir ah ula hadlay warfidiyeenka wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha guddida joogtada ah ee golaha guurtida Somaliland Sultan Ismaaciil Sultan Cabdiraxmaan walow aanay shaacin wixii la isku afkartay haddana halkaasi waxay si wada jir ah uga xuseen in si wacan la isku afkartay waxaana kamid ah hadaladoodii golaha wakiilada labadaba la kulanay golihii guurtida oo imika aan wada joogno Sultan Ismaaciil iyo xildhibaan Indho iyo gudoomiyahoodii iyo dhammaan xubniyo kale oo dhan si wanaagsan oo waafiya ayaan wax walba isla dhignay halkii ay lahayd isla afkaranay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay safkarad iyo isfaham waafi ah oo golaha guurtida iyo bahda wasaaradda horumarinta maaliyadda oo dhexmaray arrimihi aan ka wada hadlanayna si wanaagsan bay noogu dhamaadeen aad iyo aad buu mahadnaqina wasiirka maaliyadda ama horumarinta maaliyadda qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo maanta aan ku kulannay xafiiskayga guddida joogtada golaha guurtida jamhuuriyadda Somaliland kulankayagu wuxuu ku soo bilaabmay kuna dhamaaday si khayr qabta afgarad buu ku dhamaaday kullee waad ogtiin wada shaqaynta ka dhaxaysan labada gole golaha xukuumadda iyo golaha guurtida waa isxog waraysi xaaladaha dalku ku jiro gaar ahaan mas'uul kasta oo qaranka mas'uuliyad u haya hay'adda uu mas'uulka uga yahay inuu golaha warbixin ka siiyo si goluhu xoogaa lagu noqdo xaaladda dalka iyo wixii talo uu ka bixinayna uu ka bixiyo si weyn baan isku afgaranay waraysi fiican baan la yeelanay isna warbixin qiimo leh buu siiyay wada shaqaynteeduna way sii socon doontaa aad iyo aad buu wasiirku maadsan yahay wasiir Yuusuf aad iyo aad baad maadsantahay Allah kugu garab galo xilka qaranka aad u hayso wa Ahmed Nuur Ciise Maxamed